دين عظيم جاء من وحي الإله، وكأن نورا قد أضيء لمن هداه. صارت به الدنيا تسير بمنهج، نور على نور على نور هداه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada barnaamijkeennii beerta ramadaanka. waxaa xalqadan tantii ka horeysay waxaynu kaga sheekeynay waa maxay ilbaxnimo, aynu kaga sheekeynay iyo shuruudaha ilbaxnimada laga doonayo. barnaamijkeenana wuxuu sii daba socon doonaa barnaamijka hore. waxaynu imika ka warrami doonaa ilbaxnimadu tilmaamaha gaarka ay leedahay ama khasaa'is alxadaara, waxyaalahay gaarka la tahay ilbaxnimadu. taariikhyahanadu waxay yidhahdeen marka ilbaxnimo la doonayo in laga warramo, ilbaxnimadu waxay leedahay 6 qodob ayaa tilmaamahay gaarka ku tahay ka mid ah. dadka laatiinka wax ku qoraa waxay ku soo ururiyaan kelmadda grapes oo uga jeedaan 6dii qodob ay ka koobnayd oo mid kasta xarafka koobaad laga soo qaatay. maxaa ugu horeeya ilbaxnimadu? inay dhul haysato, dhul ay ka bilaabantay inay haysato. 2 inay diin leedahay oo dhul diin practice gareeyo oo diin lagu dhaqmo inay tahay. 3 dadkaasi inay dad fanka iyo artiska iyo waxa la midka dad ku horumarsan inay yihiin. 4 inay nidaam siyaasadeed ay leedahay. 5 inay nidaam dhaqaale ay leedahay. 6 inay nidaam bulsho ay leedahay. 6daa qodob baa shardi u ah ayaa shardi u ah ilbaxnimada. ma jirto ilbaxnimo bilaa diin ah oo iska socota. hadday tahay tu ilaahay diin ilaahay soo dejiyay iyo tu dadku samaysteen, dadka ilbaxnimooyinka hormoodka oo ama ilbaxnimooyinka kala soo gaara sayskooga waxa kamid ah inay diinta ayaa kamid. waxyaalaha gaarka sifooyinka leedahay ilbaxnimadu waxay yiraahdeen waxa koow u ah ilbaxnimadu waa al-insaaniya, bini aadamtinimo. maadaama bini aadamka ay xiriir ilbaxnimadu leedahay oo bini aadamku kii sameeyay ilbaxnimada uu yahay, mar kasta insaaniyadu kama baxso. ilbaxnimada haday insaaniyadu ka baxsan tahay iyo dadnimadu haday ka baxsan tahay, taasi ilbaxnimo ma noqonayso. tilmaamaha kale leedahay ama sifooyinka kale leedahay waxa kamid ah inay dadku bartaan wixii hore ay ku xiriiriyaan waxa cusub ay joogaan oo si odorosaan mustaqbalka. intaas oo la isku xiray ayaa ay ilbaxnimada sifooyinkeega kamid. waxa kale oo kamid sifooyinkeega bulshooyinka adduunku way ku kala duwan yihiin, diimo kala duwan bay haystaan, midabyo kala duwan bay yihiin, dhulal kala duwan bay ku nool yihiin, casriyo kala duwan bay nool yihiin. marka ilbaxnimo lama mid aha mar kasta. wax kamida way kamid isnaan karaan laakiin iskuma eekaan karaan. waxa kale oo kamida ilbaxnimada sifooyinka lagu yaqaano aayar bay u dhisantaa. aayar ayay u dhisantaa. wax meel kale intuu ka yimid marka mujtamac kale qabsaday ma aha ee waxa weeyaan waa mujtamaca dhexdiisa ayay ka unkantaa, ay markaas kor uga socoto. ilbaxnimooyinku waxbay kala amaahdaan. marka waa qodob kamid ah sifooyinka ay ilbaxnimadu leedahay. waxa kale oo kamid ah qofka bini aadamkii kama dhex baxsan karo ilbaxnimadiisu siday tahay. bulshooyinka nin kasta meeshu ka soo jeedo ayuu ilbaxnimadeeda. inagu Soomaali ahaan Soomaalida ilbaxnimadoodu gaarsiisan tahay ugu jiritaanka dadkeenuna u noqonaya. way naga duwan yihiin markaynu Afrika si dhex galno, markaynu Yurub tagno, markaynu maaragtay caalam al-carabi tagno. dhammaan dadka ku nool way ka duwan yihiin ilbaxnimadaynu inagu Soomaali ahaan aynu leenahay. marka 6daa qodobna waxay ka mid yihiin sifooyinka ay ilbaxnimadu ay leedahay. bini aadamku ilbaxnimada xiriir kula leeyahay 2 meelood baa ugu waaweyn ay dadka ilbaxnimada ka warramay yiraahdeen. 2daa meelood waxa weeye marka koobaad bini aadamku waxbuu ka kasbadaa ilbaxnimadiisa.
innaku dadkeennii inaga horreeyey siday u noolaayeen ee noloshooda ay u maareyn jireen qaybo badan oo ka mid a iyagaynu ka kasbannay aynu ka helnay marka insaanka qodobadiisa waaweyn waxaa ka mid ah ee ilbaxnimada ka helo maadaama uu yahay kaanil ijtimaaci uu yahay insaanku noole bulsheed uu yahay had iyo jeer wuxuu la falgalaa deegaanka uu ku nool yahay deedna wuxuu ka kasbanayaa waxyaalihii xadaaradii ayuu kasbanaya qodobka labaad ee insaanku uu ka kasbado ilbaxnimada waxa weeyaan dhaxal buu ka helaa dhaxalkaasi waa maxay khibraadkii nololeed fankii thaqaafadii ilbaxnimadii kale way qaabkii wax u maamuli jireen dadkiisa ay ka horreeyeen dhammaan waxaasoo dhan oo sidaynu tilmaanay la iskugu gudbinayo qoraal la iskugu gudbinayo ayuu qofku ka helaa marka tilmaamahaas ayaa ay leedahay muqawimaat alxadaara tiirarka xadaaraddu ku taagan tahay maxaa iyaguna ay yihiin waxay dee ilbaxnimadu sida ay nooga sheekeeyaan dadka taariikhyahanadii waxay idhaahdeen afar qodob bay ku taagantahay afartaa qodob waa nidaam siyaasi nidaam maamul weeye almawaarid iqtisaadiya waxa weeyaan inay helaan resources meelihii ay dadku ku noolaan lahaayeen inay helaan mabaadi khuluqiya mabaadi akhlaaqdooda iyo dhismahooga iyo jiritaankooga iyo ka shanaad oo ka afraad oo ah inay helaan alcilm walfunuun aqoontii inay helaan afartaa tiira waaweyn ayay markaasi ay ku taagantay markaynu leedahay mawaarid iqtisaadiya bini aadamku kuma noolaado meel aanu waxba ka helin meel saxaara ah oo aan lahayn biyo oo aan lahayn baad bini aadamku ilbaxnimo kama abuuri karayo wuxuu tegayaa meelaha webiyada ah webiyadu ka bilaabaya casrulxajari haddii dib loogu noqdo waqtigii la odhan jiray stone ageka la odhan jiray haddii dib loogu noqdo dadku meelaha ay noloshooda ka bilaabeen waxay ahayd webiyada dhinacyadooda ayay ka bilaabeen webiga dhinaciisa markaa beertii bay ka falanayaan deedna way degayaan dad badani markay degaan nidaamkoogii maamul bay samaysanayaan nidaamkii maamul markay samaystaan waxay samaysanayaan waxyaalihii kala xadaynayay waxay samaysanayaan waxyaalihii khilaafkooga xalinayay waxay samaysanayaan si cadowga iskaga xalin lahaayeen waxay samaysanayaan say kooga baahan wax ugu qaban lahaayeen iyo waxa kale la midka ay samaysanayaan kadibna halkaa maxaa ka dhalanaya waxaa markaa ka dhalanaysa ilbaxnimo ayaa ka bilaabmaysa markaad u fiirsato shiinaha boqortooyooyinkiisii gaboobay ee hore masar boqortooyooyinkeygii hore ciraaq dhammaantood iyo kuwa kale ee jiraaba meelaha ay ka aasaasmeen waa meelaha biyo fadhiisinka ama biyuhu ay socdaan ay ahayd marka xadaaraddu kol tiirkeygii koobaad mawaarid aliqtisaadiya weeyaan tiirkeyga labaad markaa muxuu noqonayaa tiirkeygii labaad wuxuu noqonayaa in nidaam siyaasadeed u bilaabo isagoo nidaam siyaasadeed marka hore lama samaysto laakiin marka hore siday u noolaan lahaayeen bay ayay horumarinayeen kadibna waxay ku xigsiinayeen markaa waxay ku xigsiinayeen inay ismaamulaan ayay ku xigsiinayeen halkaasi marka ismaamuliddu dhammaato waxaa bilaabmaya in ibdaac iyo waxyaalo ibtikaaraad iyo waxyaalo hore ay doonayaan bulshada inay noloshii ku hagaajistaan ayay keenayeen beerihii ay gacanta ku waraabinayeen bay ka bedelayeen qaabkii ay markaasi u goosanayeen midha ama beerta u filanayeen bay wax ka bedelayeen kadibna kor bay u soconayeen halkaa maxaa ka dhalanaya marka aqoontii baa ka dhalanaysa marka aqoontii markaa laga ka dhalato waxbaa la naqshadaynayaa dhismayaal baa ka bilaabmaya waxaa kamid dadkii waxay kala noqonayaan takhasusaad kala duwan ayaa ay noqonayaan kadibna markaas waxay gaadhayaan inay wax sawiraan waxay gaadhayaan inay dhismayaal qurux badan samaystaan waxay gaadhayaan markaasi inay samaystaan wixii hubabkii ay isticmaali lahaayeen ay dagaalada ama cadowga iskaga celin lahaayeen inay samaystaan halkaas baa waxay culimadu yidhaahdaan taariikhdu markay sidaa u bilaabanto waa qimat alxadaara xadaarada figteeda halkii laga unkayay weeyaan ayay yidhaahdaan marka xadaaraddu qodobadaas ayay soo marta oy leedahay muqawimaat alxadaara ama tiirarka ay xadaaraddu ku taagan tahay ayay taasi tahay waxaynu kusoo gebagabeynaynaa maraaxisha ay xadaaraddu marto ilbaxnimadu iskama bilaabanto iskamana dhammaato qorshay ku bilaabantaa meel kalena way ku tirtiranta marka koow xadaaraddu markii muddo jirto waxay abuurtaa baa la yidhi qodobka koowaada alindimaaj isdhexgal ayaa abuurtaa
qawaacidka aasaasiga ee nolosha dadku ka kooban tahay dadka kala duwan sidii isku fahmi lahayn waxaas ayaa marka dambe abuurma marka intaasi bislaato ayaa waxay gaadhaa marxalad la yiraahdo marxaladda bisaylka ay haddana gaadhaa taasina qubuul waasi xadaaradii kale wax ka soo amaahanaya iyadii baa wax laga qaadanaya bulshooyin kala duwan baa xadaarada ku abtirsanaya iyagoo kala diima ah iyagoo kala afa ay xadaarad kaliya wada sheeganaya kadib qodobka saddexaad waxay gaadhaysaa inay isballaariso alaabtii ay samaysaa bulshooyin kala qaadanayaan isballaarin fara badan ayay gaadhaysaa kadibna waxay gelaysaa marxalad loolan dhexdeeda dadku markay bataan maamulka isku qabsadaan ama maaragtay dhaqanka isku qabsadaan dhexdeeda ayuu loolan badan ka bilaabmaya taasi waxay hoos u dhigaysaa inay ballaaratay hoos u dhigaysaa waxay hoos u dhigaysaa in ay bulshadii had iyo jeer sii kordhiso ilbaxnimadeedii ay hoos u dhigaysaa dabadeedna waxaa abuurmaya markaasi loolano dhinaca gudaha waxaa abuurmaya inay damacyo dibadeed baa abuurmaya inay ilbaxnimadii qabsadaan waxaa abuurmaya qiyamkii iyo qaacidooyinkii ay ilbaxnimadu lahayd inay dadku intay ka guuraan caqligooga iyo waxyaalo kale oo dumin ku ah xadaaradii dadkooga ay soo dhiseen inay abuurmaan intaasi markay dhacdo ilbaxnimadu waxaa ku timaada inxidaad decline inay markaasi hoobato oo ay burburto ayaa ku timaada kadibna waxay dhibano u noqotaa cadowga qabsada marka ilbaxnimada waa la tirtiraa meeshana waa ay ka baxdaa insha Allah barnaamijka dambe aynu halkaa kasii wadi doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh